لولا هدي الله أن نجانا بالإسلام كنا غرقا في الأوهام والعصيان والآثام. لولا هدي الله أن نجانا بالإسلام كنا غرقا في الأوهام والعصيان والآثام. فالحمد له سبحانه والشكر له سبحانه. فالحمد له سبحانه والشكر له سبحانه. طول الأيام طول الأيام طول الأيام طول الأيام. في بدء الأمر تعلمنا علم التوحيد وأقمنا الصلوات وصمنا والقلب سعيد. في بدء الأمر تعلمنا علم التوحيد وأقمنا الصلوات وصمنا والقلب سعيد. وسألنا الله المولى أن يكرمنا برضا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله waxaynu ku guda jirnaa kitaabkeeni صحيح الآداب الإسلامية لفضيلة وحيد بن عبد السلام البالي رحمه الله. wuxuu ka hadlaya kitaabka aadaabta islaamka mawaaqic iyo boosas aynu isdul taagaynay oo aynu soo marnay aadaabta qofka laga doonayo, xaaladda uu qubaysanayo, xaaladda uu xaajo gudanayo, xaaladda uu masaajidka aadayo, xaalado badan baynu soo marnay. waxaa noogu dambeeya aynu qaadanay aadaabta laga doonayo qofka xajinaya oo cumraysanaya. waxaynu caawa ka qaadi doonaa insha allahu tacaala casharkeena hadduu alla subxaana watacaala idmo aadaabta ay leedahay ziyaarada la ziyaaranayo magaalada madinat almunawara ee nabiga calayhi salaatu wasalaam magaaladiisa. aadaabta qofka laga doonayo wax waliba aadaab bay leeyihiin. qofka xaramka iyo kacbada ziyaaranaya aadaabteedaynu soo marnay. qofka masaajidka gelaya aadaabtiisaynu soo marnay. qofka xajinaya aadaabtiisaynu soo marnay. insha allahu tacaala markaa qodobadooda iska yar caawa casharka insha allah waxaynu dhex gelinaynaa markaa faahfaahin ah qaababka un markaa ziyaarada marka quba la ziyaarinayo iyo masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxa weeye xisiga lagu dadaalayo rawdada nabiga calayhi salaatu wasalaam. arrimaha lamidka ah ayaynu wax ka tilmaami doonaa. haddaba aadaabta aynu caawa qaadanayno qodobka 13 safxada pageka 139 aadaabu ziyaarati almadinati almunawara. aadaabta laga doonayo qofka ziyaaranaya magaalada madina almunawara ee nabiga calayhi salaatu wasalaam. qodobka koowaad kathratu salaati fi masjid nabiy sala allahu alayhi wasalam. qofka oo badiya salaada uu ku tukanaya masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu ziyaaranayo oo uu tegayo masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam. aadaabta waxaa kamid ah in uu badiyo salaada uu ku tukanayo masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam. روى البخاري wuxuu wariyey عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبigu wuxuu yihi لا تشد الرحاal looma xeryo xirto oo looma safro oo sahay looma qaato إلا إلى 3 مساجد ilaa 3 masaajid mooye. marka inaad usoo taqdiiriso waxay noqonaysaa لا تشد الرحاal إلى موضع looma xeryo xirto loo sahay qaato boos إلا إلى 3 مساجد 3 مسجد مويه. مسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى يعني مسجد كأقصى أي بيت المقدس كياله. 3 أنبا عبادة الله صحيح قاتا أو الله صفراه. أما وحي كصهري مواقع ذكراء حديث قدس tilmaamayo riwaayadaasi riwaayaadka kale unbaa tilmaamayo qaarkood ay ku tilmaamayaan xadiista ay oranayaan la tushaddu الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. riwaayad kale waxay oranaysay لا تشد الرحال meesha ah وإنما يسافر إلى 3 مساجد. waxa un loo safra oo kaliya 3 masaajid masjidka kacbada iyo masjidkayga iyo masjidka wuxuu yiri rasuulku masjidka waxa way ilaahay ku yaala bayt al-maqdis. طرقdaas iyo riwaayaadka qaarkood la tushaddu qaarkood la tashid macnaha la tushaddu macnaha rixaalu ay oranayaan. riwaayaadkaas oo dhan waxay tusinaysaa in marka safarka loo aadayo meelaha waxay ku tusaysaa inay mawduc iyo boos kale meelo kale karaamaysan oo sharaf leh oo mubaarak ah inaanan loo aadaynin ilaa buqcooyinka 3daas la tilmaamay ee masjidyada mooye. asaartii saxaabada iyo salafkii baa tilmaamaya. oo Lays ibn Sulaym riwaayaad qaar laga warinaya waxa uu leeyahay waxaan la kulmay ninka la yiraahdo waxaan la kulanay Aba Saciid
annaga oo doonayna inaanu aadno buurta turusiina markaasaa wuxuu yiri aba saciid baa wuxuu yiri samictu rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul la tu'malu al-mutiy riwaayadka saasku qaarkood oranayaan sidoo kale abi saciid al-khudri baa wuxuu asagana oranaya la yanbaghi lil-mutiy an tushadda rihaluhu ila masjidin marka inay buuqaadkaas sidaas oo kale la iska reebay waxa si cadeynaya inay sidaasi ay tahay riwaayadka kale waxa weeye qarca iyo abu hurayra iyo wuxuu yiri ninba taabiciinta saxaabada kamid ah wuxuu yiri aradtu al-khuruj ila tur waxaan damcay inaan aado buurta turusiina markaasaan waxaan weydiiyay ibn umar markaasuu wuxuu igu yiri amma calimt anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qaal la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid waxay taas ku tusaysaa marka buqaca iyo boosaska kale ee barakaysan inaanan cibaado iyo loo aadaynin oo loo heriyo xiranaynin ilaa meelahaas barakaysan ee xaramka iyo madiina iyo masjidul aqsa mooye taas waxa ku tusaysaa daliishiga ay saxaabada u daliishanayaan xadiistaas marka iyo xadiiskanba waxay ku tusayaan inay xaaraan tahay in loo safro mawdic oo min al-mawaadic al-mubaraka marka boosaska barakaysan kamid ah sida maqaabirta ambiyada saalixiinta iyo waxyaabahaas oo kale aad aragtay oo dadku ay cibaado u aadayaan waxyaabahaas oo inay xaaraan tahay baa xadiiska loo daliishada muraadka nahyiguna xadiisku way ku caddahay sidoo xaafid ibn hajar uu yiraahdo wadniga uu ku yimid oo aayaadka quraanka lamid ah fala rafata wala fusuqa wala jidala fi al-hajj sidoo kale macna tiibi uu yiraahdo ablagu sarih an-nahy inuu yahay oo macna isagoo yiri way rasuulka la yastaqimu an yuqsada bi ziyarati illa hadhihi al-buqa' li-ikhtisasiha bima ikhtasat bi saasoo kale ku tusaysa xaafid ibn hajarna saasoo kale ku macneeya riwaayaadka muslim ee tusinaya ahadiista ee keenaya marka istisnaa illa ila thalathati masajid istisnaas wuxuu noqonayaa marka istisna mufarraq buu noqonayaa oo loo soo taqdiiriyo marka la tushaddu ar-rihalu illa ila mawdi'in marka inaad marka istisna mufarraq ka dhahdid taqdiirka inaad usoo qadbisid ay noqonayso la tushaddu ar-rihalu looma heriyo xirto looma safro sahay looma qaato cibaado looma aado ila mawdi'in aw usoo taqdiirisa marka istisna mufarraq marka ka dhigtay illa ila thalathati masajid illa saddexdaas buqadood ee masaajidada mooyee masjid al-haram wa masjid ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa masjid al-aqsa saasna taqdiirkaasna xaafid ibn hajar al-asqalani marka uu keenayo sidaas uu keena marka arimahaas oo dhan sawaabka ihtimaalaadka soo galayo daciif buu noqonaya illa sawaabka taqdiirkaas hore lagu keeno culimadu marka ay usoo taqdiiriyaan qaabkaasana ugu saxsan oo waxa weeye waxyaabaha kale ee lagu sameeynayo marka loogu daliishanayo ta'wiilaadka kale baatil bay noqonayaan وفي الصحيحين وحصى أروري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري صلاة في مسجدي هذا صلاة لقلت كذا مسجد كيغان كان أفضل من 1000 صلاة وحكفت لبديه يكون صلاة فيما سواه وحي إساك كصهري لقلت كذا إلا المسجد الحرام إلا مسجد كحرميسا موي ويساقوا وينو صومرني صلاة لغو تكادو مسجد كحرميسان ميلاها كسو هارودان إناي 100,000 oo salaadood dheer tahay inay 100,000 oo salaadood dheer tahay ayuu noo tilmaamaysaa marka tilmaanta masaajidkaasi ee buqcadaas la aadayo oo waxa weeye masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ziyaaradiisa masaajidka lagu tukanayo in ay muhiim ay tahay oo salaadaasi ورسولك أوليها صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه وحلقة قادرية لبلاب كأجر كاللبلاب أيوه مسجد كالنبي عليه الصلاة والسلام خاصنكم معها فريضة وكلية بل وحولي على الإطلاق وحاسوس قال يا صلاة بحديثك ورسولك أيره وكنت الماما يا صلاة في مسجدي هذا أيره مركز إطلاقه oo aanan la qaydin sunnooyinka baa soo galaya fariidadii baa soo galaysa waqaan غير ذلك soo galaya salaadaha waxa weeye farad iyo sunno ku way ahaatay mutlaqba sidoo kale waxa laga qaadanayaa waxyaabaha ku soo arooray ee waxa weeye laalaabka soo arooray inaysan mukhtas ku ahayn aysan khaas ku ahayn buqada masjidku uu ku yaala kaliya marka qofka uu waxa weeye gudanayo noloshiisa salaadaasi inta ay u dhiganta waxa weeye way gudbaysaayo ila saxaabada ficilkoodii baa noo muujinayo mutafarriqiin ayoo meel khaas oo gooniye kaliya kuma aysan tukan masaajidka oo dhan iyo hareerihiisa oo dhan way soo wada hoosgalaysaa arrintaasna waa laga qaadanaya oo xadiiska waxa uu tusayo ayaa laga qaadanaya
marka in salaada nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu tukado riwaayatan aan ahayn ma arag marka habeen dhexdaas jeclahay inuu rag kamid ah walaalaha qolka ay weydiinayaan oo 10 kun iyo meelahaas ma arag marka riwaayadaadkaas oo dhan riwaayaadka ugu saxiixsan ee tilmaamaya masaajidka nabiga fadligiisa salaada lagu tukado waa xadiistaas soo aroortay salaatun fi masjidi hada afdalu min 1000 salaatin inay ka fadli badan tahay 1000 salaadood fi masjid waa wax isaga ka soo haray marka laga reebo ila masjid al-haram masjidka xurmaysan marka laga reebo salaada masaajidka nabiga aad ku tukatid waxay salaadaha kala dheer tahay meel kale aad ku tukatay kun fadli bay dheer tahay marka in aad badsatid marka aad booqanaysid ziyaarada nabiga calayhi salaatu wasalaam masjidkii aad geysay magaalada madiinatu munawwara qodobka labaad ee aadaabteena waxay tahay ziyaaratu shuhadaa Uhud oo Baqiic qofku inuu booqdo oo uu sunno ay tahay oo wanaagsan tahay ziyaara shuhadadii Uhud iyo Baqiicba inuu tago labadaba inuu tago in ay wanaagsan tahay maxaa yeelay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ficilkii saxaabadaba taasna way muujinaysaa oo saxaabadu booqashadii ay tagi jireen iyo halkaa ay aadi jireen intaba way noo muujinaysaa marka in qofku waxa weeye marka uu tago oo uu soo booqdo waxay ka mid tahay marka waxyaabaha aadka u fadli badan ee waxa weeye qofku uu ku soo cibro qaadanayo oo uu tagayo marka inuu tago shuhadadii Uhud meesha ay ku duugan yihiin iyo inuu tago waxa la midka ah marka ziyaaraadka soo arooray ee sharciga ah ee fasaxaya dhaqankii salafkan uu noo tilmaamayo waxay ka mid tahay waxyaabaha wanaagsan ziyaaradoodana maxaa tilmaamaya marka in la soo booqdo qala Allahu ta'ala salaamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar nabadgelyo dushiina ha ahaato bima kii sabartum aad ku sabarteen fa ni'ma uqba dar waxaana nimco yeeshay daarta dambe ciribteeda qofka hela suuratu ra'd aayada 24aad markuu u soo daliishaday saxaabada iyo tilmaantooda iyo khayrka ay ku sabreen ayaa waxa uu leeyahay rawa muslim wuxuu wariyay can abi hurayra radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wa sallam zuru alqubur quburti ziyarta ayuu leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam fa innaha tudhakkiru almawt waxa idin xasuusinaysaa geeridii iyo mawdkiiba idin xasuusinaysaa taasuu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam tilmaanta uu ka bixinaya ay tahay in la booqdo qubuurihii oo la soo ziyaarto oo la tago waxay ka mid tahay waxyaabaha fadliga noo tilmaamaya in qofka markaa uu tago oo uu soo ziyaarto oo qubuurtiina qubuurihii Baqiic way ka mid tahay oo rasuulku sallallahu alayhi wa sallam uu noogu tusayo sunnadiisa mutahharada ah in waxa weeye la soo booqdo oo la soo ziyaarto dadka shuhadada ah iyo dadkaasi waxa weeye qubuurtoodii la tago oo dikrigi iyo aadkaartii la akhrinayo ayaga wax laga raadsan mayo nafcina laga raadsan mayo laakiin iyagii baa la soo ziyaaranaya loona soo duceynaya oo la tagaya marka taasna waxay ka mid tahay ahadiista umumkeedana way soo hoosgelayaan oo tilmaanta ay ka baxaysa ayay ka mid tahay wuxuu yiri marka wuxuu yiri zuru alqubur quburti ziyarta fa innaha tudhakkiru almawt geeridi iyo mawdka bay idin xasuusinaysaa ahadiis kale waxay qalbiga jilcinaysaa ahadiis kale waxay ahayd aakhira idin xasuusinaysaa marka waxyaabaha laga helay ka mid tahay riqiga qalbiga iyo jilcsanaantiisa iyo booqashada iyo ziyaarada quburta la booqanayo oo aan loo qasdaynin markaas tagitaanka caadiga marka aad Madiina ziyaaranaysid baad u aadaysaa marka isoo hoosgelayaan laakiin qubuur u qasdimaysid marka oo loo saahay qaadan mayo loo heriyo qaadan mayo qodobka saddexaad ee aadaabta waxaa ka mid ah ziyaaratu masjid Quba ziyaarada la ziyaaranayo masjidka Quba isagana waxa soo arooray ee sunnanimadeeda iyo aadaabta loo ziyaaranayo rawa imaamu muslim wuxuu warinayaa can ibn umar radiyallahu anhuma qala waxa uu yiri kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam rasuulka alla wuxuu ahaa yaati masjid Quba mid yimaada masjidka Quba raakiban isagoo raakib oo gaadiid saaran وماشيا isagoo soconaya fayusalli ku tukanaya fi dhaxdiisa masjid Quba ragcatayn laba ragcadood buu ku tukanaya rasuulka sallallahu alayhi wa sallam taa waxay ku tusaysaa marka aadaabta ziyaarada masjid Quba la ziyaaranayo in ay ka mid tahay aadaabta la isfaray ayay ka mid tahay oo ziyaarada masjidka Quba waxay ku tusaysaa masjid Tib Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu in aan ku tukado masjid Quba laba ragcadood xab ilayya min atiya bayt al-Quds marratayn law ya'lamuna ma fi Quba la darabu ilayhi akbad al-ibil wa tulaha hadalkii dheeraa ee uu ku keenayay asar saxiix oo Fath Baariga ibn Hajar uu ku keeno ibn Abi Shayba iyo akhbaar al-Madina iyo uu ku keeno sida saxiix al-Bukhari ku soo aroortay ibn Umar radiyallahu anhu
axaadiistiisana rasuulku uu hadda noo tilmaamayo inuu imaanayo quba isagoo raakiba isagoo maashi ah 2 ragcadoodna uu ku tukanaya sidoo kalena axaadiista kalena way tilmaamaysaa marka fadliga laga helayo rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu leeyahay kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ya'ti uu imaanaya masjid quba in raakiban wa maashiyan masjid quba imaanaya rasuulku isagoo gaadiid saaran ama maashi oo soconaya fayusalli fihi ragcatayn waxa uu ku tukanaya 2 ragcadood روى ابن ماجه وحورينيه وصححه الألباني الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله صحيحينيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري من تطهر في بيته قفك كسو طهارة قات قرقيسة ثم أتى مسجد قباء كدب نيم هذا مسجد قباء فصلى فيه كنت كذا صلاة كنت كذا كان له كأجر عمره waxa uu helaya ruuxaasi ruux umraystay ajarkiisa oo kale ayuu helaya abu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam qofka yimaada oo gurigiisa ka soo tahaaro qaato ajri umro oo kale uu helaya maxaa yeelay masjidka quba masjid usis ala taqwa min awwal yawm huwa masjid nabi sallallahu alayhi wasallam marka waxa la sineeyaa ziyaaradiisa sida waxa weeye baqiic iyo maqbaratu uhud oo kale salafku ay sameyn jireen oo ay ziyaaran jireen madiinatul munawwara markay weydiistaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu amaasha qofka la iimaanayo uu ka aqbalo marka inay wanaagsan tahay aadaabta ay kamid tahay qofka madiina soo ziyaarta inuu quba uu soo maro anagoo tilmaam guud ka bixinayno qaabku nabigu calayhi salaatu wasalaam oo aasaasay qodobka afraad qodobka xadiiskaasi hore man tatahara fi baytihi qofka ka soo tahaaro qaata gurigiisa ثم أتى مسجد قباء كدبنا يماذا مسجد قباء فصلى كذا فيه الأحديث معناها صلاة كنت كذا كان له كأجر عمره وحوهل يا أجر عمره وكله قضبك أفراد وحوي الإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام إنه الروح بضيه صلق يا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مركم مدينة ويماذا صلقنا إنه بضيه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بضيه روى أبو داود وحورنا وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري لا تجعلوا كيلنا بيوتكم قريهن قبورا قبريها كيلنا ولا تجعلوا قبري جينا عيدا كيلنا مثل قصة داوشتكو وحوي لوسو عيتكو وصلوا يصلي علي الدشيدة فإن صلاتكم صلاة يسلقين تبلغني حيث كنتم ويسو غاريسا ميل والبو جوجتان ويسو غاريسا مركز زيارة قبر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام ونو tilmaamayo oo uu leeyahay maxay yeelay qabriga wa awwal shirkin umadani oo waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala khalaa'iqdu abuuray shirkiga uu reeyay galaan qabri buu ka yimid رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أولى بخاري غيرك ورينيان لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا الله لعن اليهود يا النصارى وحي قبور أنبياء ذي كيشين مساجديو مال أي كل اعتكافان أو أي كل عبادتان بكيالا يحو رسولك صلى عائشة وحي دبدي جيسي هذا الأها وحساء أولي رسولك صلى الله عليه وسلم waxa uu ka digaya waxa ay sameeyeen kale inay ummadan sameeyaan saasa macna ciid inaan laga dhigin oo meel lagu macnaha la iska fariisto qabrigii la caabudo aysan noqon walaw la dalika la abraza qabruhu macna daysan sida jirin qabrigiisa waa la muujin lahaa bayleed waxa laga qabaqay in masaajid laga dhigto meel cibaada laga dul dhigto saasoo kale xadiis badankooda aad ku arkaysaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam markay salama kaga warantay iyo habiba radiyallahu anhuma markay kaniisadii ardul xabasha ay ku soo arkeen iyo suwarka ku yaala oo ay rasuulku uu yiri marka kuwaasi marka uu dhinto nin wanaagsan oo saalixa qabrigiisa masjid ka dul dhisayeen wayna ku sawirayeen tilka suwarka aad soo aragtay ulaaika macaa kuwaasi waa kuwa ugu qalqiga Allah subhanahu wa ta'ala ugu shar badan riwaayad saasoo kale way jirtay sidoo kale xadiis badan oo muslim iyo qeyrkii ay warinayaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo arrinkaasi aad uga digayo oo waxa weeye dhulko dhan in masjid iyo la iskaga dhigay meel lagu cibaadeysto illa al-maqbaratu wal hamam ahadiis baa ku soo aroortay marka arimahaas oo dhan shirkiga ka dhalanaya loo diiday maxaa yeelay qofka hadduu shirki galo oo uu cibaadadaasi sida ummadii hore qowmu nuux marka la soo diro ugu horeeyay dadku markay ku xad gudbeen wad suwaac iyo dadka aad aragteen oo saalixiinta ahaa
shirkigaasi waxa ka dhashay marka quraanku suu u weyneeyay way in allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman aziman waatay aayaadka ku soo arooreen marka iyo waanintii luqmaan wiilkiisa uu waaninayay marka in qofku uu aad uga digtoonaado maxaa qubuuraha loo burburinaya maxaa qabri ku jira maxaa dhifo ku jira maxaa lafaal loo soo saaraya maxaa saa loo yeelay shubahaadkaas oo dhan shirkiga ka dhalanaya ka weyn ummado dhan baa ku halaagsamay ummado dhan baa lagu qarqiyay ummado dhan baa ku baaba'ay wax shirki la gala arladan dusheeda ugu horeeyana qabri baa ugu horeeyay seedan marka dadka agtiisa loo weyneynin bal nabiga wuu ka dardaarmay qabri mushrif oo taagan hadii la arko in la burburiyo madaxa laga jaro oo la gooyo oo qabrigii la yareeyo taakana aan laga kormarin waxaan qubadaha laga dhisayo waxaan bulkeetiga lagu xardhayo waxaan la qurxinayo waxaas oo dhan waa bidcada soo kordhay marka qofku hadduu awood u leeyahay uu fulin karo shareecadu way u saamaxaysaa oo u fasaxaysaa in lagu dhaliilo lagu ceebeeyo ma aha in lagu amaano weeyo qofka diinta fuliya siday tahayna u fuliya maanta waxa weeye cagsi weeye bada alislaamu ghariban wasayacuudu ghariban fatuuba lilghuraba islaamku wuxuu bilowday isagoo ghariib ah hal iyo laba iyo saddex wuxuuna ku laabanaya isagoo ghariib oo shay diina marka la sameeyaba loo malaynayo wixiiba inay bidca ay tahay روى أبو داود وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري لا تجعلوا كيلنا buyuutakum guryihiina qubuura ka yeelina oo guryihiini qubuura ka yeelina meelaan lagu cibaadaysan oo lagu tukanayna ka yeelina ee gurigiini meel lagu cibaadaysto khayrka lagu sameeyo ka yeela qubuurtaan lagu cibaadaysan oo lagu tukanay saasna bacd ulama waa ku fasir wala tajcalu ka yeelina qabrigaygana ciidan meed loo soo ciid tago loo xaflad iyo damaashaad iyo cibaado ka dhacdana qabrigayga ka yeelin wasallu alayya igu salliya dushayda fa inna salatakum saladina tablughuni haythu kuntum wa isoo gaaraysa meel walbo aad joogtaan روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحويري من صلى علي صلاة قفك يصلي صلاة كلية صلي كلية صلى الله كصلي عليه دشيس بها 10 طبنجر الله كصلي قفك هل مر يصلي الله اسنا طبنجر كصلي وينو صامرنا marka muxaadaradeen aynu kaga hadlaynay dadka Allah subhanahu wa ta'ala iyo malaa'iktiisu ay ku salido oo aynu soo qaadanay qodobo badan xadiistan kamid aha aynu daliishanaynay wada doonayso in Allah kugu saliyo malaa'iktiisu ay kugu salido saliga waxyaabo ay ku yimaado waxa kamid qofka nabiga ku saliya mar kaliya Allah toban jeer ku saliya saliga Allah subhanahu wa ta'ala waa amaan weeye saliga malaa'igtuna waa dambi dhaaf iyo naxariis Allah ku weydiinayso man qofkii saliya alayya dushayda صلاة صلي صلاة كلية صلى الله كصلي عليه دشيس بها 10 طبنجر كصلية قضب كشنات آداب تعاوى إنه قادنا إنه وحا كمده عدم الرفع الصوت بالدعاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قفك إنه صنعاتك كرء الدواقين وكرء قيلين دعوينك يبريدي يرمدي با مسجد كرسولك صلى الله عليه وسلم وانا الله اسكره بحلق الرسول صلى الله عليه وسلم إن كر لور الدواقو لقى قيليان لما أقل قال الله تعالى الله وحولي يا أيها الذين ضدكي آمنوا إيمانك لغيه لو لا ترفعوها قاذين أصواتكم عددكينا فوق صوت النبي صوتك النبي دواقي كسر قاذنا ولا تجهروا هل الجهرين وهل دواقين له أسقه الدواقين ويرنا بالقول قولك هذا الكل جهرنا كجهر بعضكم لبعض قاركين قارك كلا شيء ولا جهران يغيران يدواقان رسولك يغيرنا او جهرنا محاسك ان تحبط اعمالكم اني عملكينو بره وانتم لا تشعرون اذن كون غرانين ساهيلنا مر دواقا رفعك صوتك كور لو قادو codkii nabiga ka sar laga sar mariyo waa la iska reebay in la jahro loola dhawaaqo magaciisa loogu yeero loola jahro sida qaarkiin qaar kale ay ugu yeerayaan taana waa la iska reebay ayal acmaasha ku buraysa adoonan garanaynin marka in dhawaaqa iyo ducada iyo yeerimada iyo in laga adabsado aadaabta kamid tahay qofku uusan la qeylin qodobka lixaad ee aadaabta caawa aynu qaadanayna waxa kamid ah الحرص على الصلاة في روضة الشريفة qofku inuu ku dadaalo xirsi iyo dadaal ula yimaado salaad uu ku tukado rawdada shariifka ah ee nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshaasi rawdada uu ku tilmaamay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo xadiisku uu noo tilmaamayana inuu qofku waxa weeye ku dadaalo siduu ugu cibaadaysan lahaa oo ugu tukan lahaa maxaa yeelay waa la amaanay amaanta inta shariicadu ay amaantayna
waxa ka dhalanaya fadliga ay leedahay waxay ku tusaysaa marka inuu qofkii waxa weeye cibaadadeedii uu badsado oo makaankaasi uu badsado oo uu ku tukado rawdada shariifka ah ee barakaysan ee wanaaga badan ee qofka ku tukada uu fadliga intaa la eg uu helayo isagoo beerihii jannada ku dhex jira ay u dhiganto arrintaasi marka waxay ku tusaysaa inta yarta ee waxa weeye hadda qofka gala uu arkaya ee rooga uu ka duwan tahay calaamaadka masaajidka intiisa kale ay ka duwan tahay isagoonan dadkii waxa weeye dhibaynin isagoo dadkii aanan waxa weeye riixaynin isagoonan dadkii waxba u geysanaynin ayaa waxaa sunno ah in waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam u jideeyey macnaha meeshaasi haddii aad ku tukan karto in aad ku tukatay adoonaan cidna ku dhibaynin masaajidka intiisa kalena waad ku tukan kartaa laakiin haddaad heli kartid meeshaasi inaad ku tukato wax dhiba malaha fadligaas xadiistu ay noo tilmaamaysana waa laga helayaa oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu noogu tilmaamayo maxaa kamid ah marka waxa uu leeyahay fi saxiixayn waxaa ku soo arooray can cabdullahi ibnu zayd radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala waxa uu yidhi maa bayna beytii wa mimbarii inta u dhaxaysa gurigayga iyo mimbarkayga rawdatu min riyaadi aljanna waa beer kamid ah beerihii jannada ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u yidhi inta u dhaxaysa gurigayga iyo mimbarkayga riwaayadda oranaysa marka maa bayna beyti wa qabri rawdatu min riyaadi aljanna taasi waa daciif weye ama riwaayadda maa bayna beyti wa mimbari riwaayaddaana saxiixa inta u dhaxaysa gurigayga iyo mimbarkayga rawdatu min riyaadi aljanna waa rawd beeraha jannada kamid ah ayuu rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam uu tilmaamaya oo uu noo sheegay marka inta waxay ku caddahay intaa rawdada ah adoon inzixaam iyo cariiri iyo xoogid iyo midna aadan samaynin hadday kuu suura gashana ku tuko haddaysan kuu suura gelinna dadkii ha ku dhibin oo waxa weeye markaa cibaadadaadi iyoisan kaa khasaarin maxaa yeelay tarafuca iyo cibaadada iyo riixitaanku midna lama ogolo intaa marka haddii aynu soo guud marno marka aadaabtaasi caawa maadaama casharkeenu isku yaraa 15 daqiiqa marka waqtigeena ka haray aynu guud ahaan usoo hormarna marka nebigu calayhi salaatu wasalaam masjidka qubaa goormuu dhisay masjidka nebigana goormuu dhisay intuu maka joogayna rasuul sala allahu calayhi wasalam muxuu qabanayay guud ahaan marka haddaan si sirdi ah oo khulaasaa u kormarno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay maalin isniina agoon buuna ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam bishaaruuna ku yimid oo ana dacwatu ibrahim wa bushra ciisa ra'at ummii xiina xamalat bi كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور البصرة من أرض الشام روايات كنوعها دعوذي وحنكوي من نبي الله إبراهيم بشارة النبي عيسى هو يذهب وحي أركت مركا إيه حمبارتي نور كصوب بحية أو إفيه قبوره وحن ليه هاي قصورتي يضاره بصرة أرض الشام وطن إفيه وحن نجسي النبي عليه الصلاة والسلام حليمة بنت أبي ذؤيب حليمة سعدية اللو يقانه رسول صلى الله عليه وسلم waxa oga dhaahiray wujuh iyo barakaad khayr badan baa oga dhaahiray sanadkii afraad markuu gaaray nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa u yimid laba malag qalbigay ka jeexeen oo qalniin bay ku sameeyeen qalbigiisii bay banaanka u soo saareen waa dhaqeen qalbigii bay ku celiyeen sanadka afraad markuu ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam sanadkii lixaad rasuulka sallallahu alayhi wasallam hooyadii baa dhimatay meesha abwaa la yiraahdo oo maka iyo madiina u dhaxaysa waxa kafaala qaaday awowgii Abdul Muttalib ayaa kafaala qaaday markuu nebigu 8 sano uu gaaray awowgii baa dhintay Abdul Muttalib waxaa kafaala qaaday nebigu oo la wareegay adeerkii Abu Talib markuu nebigu gaaray 12 sano waa ayuu safar u baxay adeerkii Abu Talib buu raacay Sham buu aaday meesha markuu gaaray Busra ku taala ayaa macnaha Buxayrada ayaa meesha raahibka uu ku jiray qisada macruufka aad garanayseen ayaa ninkaasi marka uu u sheegay oo sifaadkii nabinimada ay uga muuqatay adeerkii buu la hadlay in ninkaan Sham aan lala aadin illa celiyo sidaas nabiga lagu soo celiyay calayhi salaatu wasalaam isagoo 12 jira oo Sham uusan aadin markuu gaaray 15 sano dagaalkii waxa dhacay xarbul fijaar ka dhacay waad garanaysaan oo dhaxmaray Quraysh iyo Hawaazin dhaxmaray sanadkii waxa la isla wuxuu xaadiray nabigu calayhi salaatu wasalaam xilful fudul oo waxa weeye heshiiskii dhaxmaray dadkii meesha xilful fudul iyo nasr qofkii madluumka ah in loo gargaaro qisadii macruufka aad garanaysaan qofka laga gardaran yahay ee madluumka in loo gargaaro heshiiska nabigu ka qayb galay markuu gaaray nabigu calayhi salaatu wasalaam 25 sano ayuu Khadiija guursaday radiyallahu anha markuu gaaray nabigu calayhi salaatu wasalaam 35 sano waxa iskhilaafay Quraysh
cidda dhagaxa dhigi lahayd ee kacbada dhex dhigi lahayd waa tuu kala saaray nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu gaaray nebigu calayhi salaatu wasalaam 38 sano waxaa iskaga daba yimid calaamaad nebinimo ah oo waxa weeye ruhbaantii iyo kuhantiiba ay ku sheekaysanayaan markuu gaaray 39 sano nebiga waxaa la jeclaysiiyey khalwa ah inuu dadkoo dhan ka dhex baxo oo iskaga cibaadaysto qaaru xira bisha ramadaan oo dhan halkaas uu cibaado iskaga samaysto sanadkii intaan la soo saarin sanadkii 40aad 6 bilood ka hor ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam riyooyin baa waxyi ahaan ugu imaanaya ilaa ma arka waxay ugu imaanaysaa mithlu falaq subhi oo kale riwaayaadka ku aragteen riyu arkaya ilaa wuxuu arkayaa riyadiyo sideedii oo kala loo tusinaya 6 bilood ka hor ilaa bicsadiisii rasuulka sallallahu alayhi wasallam markay 40 sano u buuxsantay jibriil baa u yimid calayhi salaam waxyi ula yimid xagga rabbigi isagoo rasuulku ku cibaadaysanayo qaar al-Hira ku jira oo suuradii quraanka iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana ayadka ay soo degeen sidaasuu dacwada dadku ugu yeeray oo ugu dhex jiray qaab sir ah fardi iyo shakhsi qofku ku kalsoon yahay uu sheegay 3 sano sidaa ku waday rasuulka sallallahu alayhi wasallam sanadkii 40 ilaa 43 sano laga gaaro dacwada sirta ee dadku ugu yeeray ku jiray waxaa islaamay xilligaasi dacwada sirtaasi dadku ugu yeeray dadkii saabiquuna alawwaluuna la oranayay khadiija iyo cali iyo zayd iyo abubakar iyo غيرkood ba xilligaasi islaameen ثم دبل النبي انت كبعد 43 سنه markay dhamaatay dacwadii inuu la jahraa la amray ya ayuha almudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir ila aakhir aayaadkaasi inuu jahri oo dacwadii uu muujiyo oo soo saaro oo la dhawaaqa la faray dadkina way kula culoobeen qoomkiisii quraysh baa istaagtay tacdiib iyo cadaab bay ku sameeyeen islaamkii qof kasto islaamnimo ay ka ogaadaan diintiisii sabr iyo adkaysi iyo tasabbut bay saxaabadii ka sii heleen oo ay ku sii adkaysteen ciqaabkoodii waxa lagu sameeyay quraysh marka ay ku sameeynaysay nabiga wuxuu macnaha guntay ijtimaacaad sirri ah oo muslimiinta dhaxdooda ah inay daarul arqam ku yimaadaan sida diintooda loo bari lahaa sharaa'icda islaamka loo bari lahaa sidaasay ku jirtay ilaa sanadkii shanaad laga gaaro bictadiisii waxaa hijrooday tacdiibkii iyo cadaabtii quraysh ay ku haysay saxaabadu marka uu batay jamaaca min as-saxaaba ardul xabasha aaday oo aad garanaysaan markii ugu horeysana 12 qof baa baxday markii ka bacdina waxa weeye 80 iyo xoogaa baa baxay 17 haween ay yihiin qaar ay yihiin baa saa u baxay idinkii rasuulku uu idmay عثمان بن عفان با kamida Zubayr ibn Awam ba kamida Abdurrahman ibn Auf Ja'far ibn Abi Talib sidaas ilaa marka labada hijra marka la isku daro 10 sano ugu sugnaayeen ardul Habasha sanadkii waxa weeye rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay ka soo wareegatay sanadkii lixaad bicadiisii ay ka soo wareegatay waxa islaamay Hamza ibn Abdul Muttalib iyo Umar ibn Khattab wad garanaysa sanadkii lixaad bay islaameen islaamkii baa cizoobay islaamkii baa xoog batay islaamka labadooda ay islaameen qisadii waad garanaysaa macruufka ahaa sanadkii 7aad ee bacsadii nabiga calayhi salaatu wasalaam quraysh baa heshiis iyo tacaahud iyo gashay waa marka ay ugu horeysay ee soo baxday marka in cunaqabateen la sameeyo oo waxa weeye la gooyo reer bani hashim maadaama ay reebi waayeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam uga ergoodeen orjer ayaa la goostay marka in cunaqabateen la gooyo ilaa ay harguhu iyo caleenta geedaha ay la cunaan ay la gaajoodaan sanadkaasi waxay ahayd 7aad quraysh marka ay gooysay in reer bani hashim waxa weeye nabiga haday u soo dhiibi waayeen cunaqabateynta lagu sameeyay waxyaalaha dagaaladu ay sameynayaan lamid ah caalamka hadda la joogo isla sanadkaasi bani hashim baa la gooyay oo waa fogaadeen ayaga iyo walaalahood banu mutalib bin abdul manaf kulligood macay abi talib waa tay shacabkii iyo togagii iska galeen halkaasi 3 sano ay ku sugnaayeen ilaa ninkii la oran jiray Mut'im ibn Adi ibn Nawfil iyo Zam'at ibn al-Aswad iyo raggaasi marka dambe ay adkaysan waayeen reer bani hashim reer bani mutalib waxa lagu hayo oo ay heshiiskii buriyeen saxiifadii ay googooysay macnaha halka heshiisku ku buriyeen oo reer bani hashim ay soo baxeen togi ay ka soo baxeen ilaa akhirka sanadkii 9aad sanadkii 10aad ee bictada nabiga calayhi salaatu wasalaam Abu Talib baa dhintay 3 bilood kadib haddana Khadiija dhimatay sanadka waa tii loo bixiyay marka caamul xusni loo bixiyay labadooda moodkoodii oo aad ugu darnaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu la murugooday qurayshna ay gaartay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay ku dhiiratay inay wax yeelayso xilligii adeerkii uu noolaa wax aysan ku sameyn jirin inay ku sameeyso isla sanadka 10aad bishii shawaal ayaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa lagu meheriyay Aisha radiyallahu anha iyadoo 6 sano jirto lama uusan aqal galin ilaa sanadkii koowaad ee hijriyada marka laga gaaro iyadoo 9 sano ay jirto isla bisha shawaal ee sanadkaasi ayaa nabigu wuxuu guursaday Sauda bint Zam'a radiyallahu anha isla sanadka laftiisu nabigu wuxuu aaday
طائف هذه مركو كقوستي قريش iyo dacwadii ugu yeeritaankoodii iyo tacdiidkii saxaabada uu batay qaarkoodna ay hijroodeen qaarna cadaab lagu hayo oo uu ka quustay ayuu طائف aaday isagoo ugu yeeraya islaamka waa tay diideen oo ay rasuulku dhibeen oo ay soo dhagaxyeeyeen isagoo mahmuum ah ka soo tagay rasuulka sallallahu alayhi wasallam illa Allah subhanahu wa ta'ala uu ku sugay labadii arimood oo waaweyn isla sanadkaasi malagii jibaalkii buuraha loo soo diray oo gacantiisana ay ku islaameen majmuuca min al-jinn markuu ka soo laabtay rasuulka sallallahu alayhi wasallam quraanka waxiga waad garanaysan aayaadkii kadibna waxa way nabigu calayhi salaatu wa markuu ka soo galay jawaar odagii uu macnaha gurigiisa galay oo uu magan geliyay ninka la oran jiray mudcim ibn adi radiyallahu ninkaas uu magan geliyay isla sanadkii 11 ee bicsadii nabiga calayhi salaatu wa salaam wuxuu naftiisa u bandhigay qabaa'ishii mawsimkii xajka la gaaray sanadkaasi tobnaad bacda nabiga calayhi salaatu markay ka soo wareegtay mawsimkii xajka sida caadada u ahaan jirtay xilligaas dadka dibadaha ka imaanayo quraysh markuu ka quustay dadka kale uu diinta gaarsiinaya isla sanadka tobnaad sidoo kale uu sameeyay waa markay islaamka qaadanayaan lixdii oday waaweyneed ee ansaar kamid ahayd madiina intay u laabteen islaamka magaciisa uu gaaray isla sanadkii 12 ee bacdadii nabiga markay ka soo wareegatay ayaa nabiga la dheelmiyay calayhi salaatu wasalaam من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سنة كاللبية طمنات بيد عده إن كستو هذا الكجرة قاركوت مركا لديلمية إلى سندرة المنتهى القاسية صلاة شنطة أمضى القصة فرضية لسنة كاسية عده انت كوريس التوحيد بفلني رسول صلى الله عليه وسلم إسلام موسم الحج كسنة كاسية طمنات سنة كاللبية طمنات موسم كيسي وقت حجك أيا وحا أسو معنا وفدي أهان نبي ويمد لبية طمنين أو أنصارتي كميدة قاركوتنا ضدك هوري لحدي كميدة أها نبيجي لا كل من ولا مبايعودين بيعة عقبة الأولى مد لجو مجعبوه مرك طبعا كان مرك إلا مبايعودين رسول صلى الله عليه وسلم وحو مرك قدري سم مدينة دين تلابره واللوجر يبيعة في صحابي جليل كمصعب بن عمير ورجل العقابة أو العذاب كم ذا أو قال نعصي عقاب كيس سيد الراشين كويدي جويسي ninkaas lagu daray soo quraanku u baro islaamkana u baro gacantiisana dad badan oo Madiina ku soo islaamay sanad 13 ee bictada nabiga calayhi salaam isla mawsimi xajki waqtigiisii 7 wafdi abaag Madiina ka yimid oo ansaarti kamid ah rasuulkay lama baayacoodeen bay'ay la galeen heshiis bay la galeen inay ka manciyaan waxa ay naftooda iyo haweenkooda iyo carruurtooda ka celinayaan rasuulka inay uga difaacaan oo kale heshiiskaas ay la galeen waxaa laga soo dhaxsay 12 naqiib oo war garanaysaan oo nuqabadoodii odayaashoodii cuqaashoodii wax garadkoodii kamid ah oo marka rasuulku yiri antum ala qawmikum kufar idinka iga filan qowmkiinu iga gaarsiinay oo sanadka lagu magacaabay kale bay'atu aqabati thaniya lagu magacaabay marka 70 kan nin markuu heshiiska u la galay nabigu wuxuu amray marka kadib sanadkaasi 12aad saxaabadii inay hijroodaan Madiina ay aadaan isaguna uu sugay ilaa wixii uu ka yimaado amraya waxa la celiyay oo la reebay rasuulka sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar iyo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu saxaabada intooda kale waa hijroodeen ilaa intii maqnaydo ardo xabasha muadimoy xilliga hijradii markay dhacday isla sanadkaasi Quraysh ijtimaac iyo kulan weyn bay daaru nadwa ku yimaadeen oo baarlamaankoodii isugu yimaadeen waxayna ka mushaawaroodeen ka shireen say nabiga ka yeeli lahaayeen calayhi salaatu wasalaam waxay ku kulmeen heshiis ku qaateen in la dilo nabiga markaynu soo aruurino jibriil baa markiiba wixii la soo degay rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo warramay quraysh waxay gaartay waxana la faray rasuul sallallahu alayhi wasallam inuu hijroodo taariikhda islaamka hijradaas kow ka bilaabanaysa marka bisha rabiic al-awwal sanadka koowaad ee hijrada madiina loo hijrooday ayuu nabigu u hijrooday oo bisha rabiic al-awwal oo sanadkaasi ah sanadkii koowaad ah maka intuu ka hijrooday madiina aaday isla sanadkaasi bishaasi koowaad ee rabiic al-awwal ayaa nabigu marka masaajidka hadda Quba oo ayuu ku degay masaajidkaas uu dhisay rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu soo hijrooday meesha uu ku degay masjid Quba bay noqotay meeshaas uu ka dhisay meeshaas uu nabigu alayhi salaatu wasallam salaadii jumcaha markuu ka rartay Quba ila Madiina uu socday tariiq reer bani Salim meesha la yiraahdo salaadii jumcaha ugu horeysay lagu tukaday awwal jumcati sallallahu alayhi rasuulka jumcadii ugu horeysay uu tukaday ay tahay khudbadii ugu horeysay islaamka dhexdiisa la akhriyana ay tahay kadib rasuulku Madiina yimid wuxuu ku degay daarta Abi Ayyub al-Ansari oo meesha hadda masaajidka uu ka dhisan yahay masaajidkii nabigu uu dhisay xujuraadkii iyo guryaha haweenkii mu'minaadka la dhisay waxa isla sanadka islaamay ninkii caalimka ahaa ee yahuudiga ahaa radiyallahu anhu Abdullah ibn Salam ayaa isla sanadkaasi islaamay wuxuu nabigu diray sanadka islamarkiiba uu tagay isla sanadka bishii Rabiicul Awwal oo Madiina uu tagayba wuxuu diray nabigu alayhi salaatu wasalaam in Maka laga keeno gabdhihiisi iyo zawjaadkiisi Sauda iyo bint Zab'ad Zayd ibn Harith iyo Abu Rafi iyo ragaas loo diray waana la keenay oo Maka laga keenay Madiina la keenay
marka zaynaba laga reebo intii kale haweenkii rasuulka sawda ahayd iyo gabdhihiisiba waa la keenay zaynaba marka laga reebo isla sanadkaa laftigiisa ree aal abubakar oo dhan ay soo hijroodeen sanadkaa bishii ku xigtay rabiicul aakhir ah ee sanadkaas ah ayaa salaadii xadarka ahayd ee hadda aynu afarta u tugo macnaha salaada marka la nag yahay guryaha la joogo laba ragcadood bay ahayd salaada safarka laba ragcadood bay ahayd salaadii hadda la naga marka ee la joogay baa la ziyaadiyay afar baa laga dhigay sanadkaas sanadka koowaad bisha rabiicul aakhira ayaa la kordhiyay salaadii safarkana sideedii baa loo daayay isla sanadkaasi bishaasi rabiicul awwal baa waxaa dhashay cabdullahi ibnu zubayr أول مولود للمهاجرين في الإسلام وهي مركز ضدك مهاجرين تاعي سو هجرودي مدينة يمد الموء دش عبد الله بن الزبير بأوجه الرية سعايش لقوا مجعبان كونيا هذا أم عبد الله اللي يراده وهي وحبرير أي وطاي إسلاس بشاسي سنة كاسي ربيع الآخر لما كهذه أيام نعمان بن بشير أو حويه أنصار كم يدها عروت هو الرئيس أول لطين وكم يدها إسلاس سنة كاسي لفتجي صحابة كلثوم بن الهدمي أسعد بن زرار أيدنتان sidaasa isla sanadkaasi bishaasi baa la sharciyeeyey aadaanka la sharciyeeyey isla bishaasi iyo sanadkaasa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu mucaahade iyo heshiis la galay yahuudi madiina deganay bishaasi marka laga soo tago bishii ramadaan isla sanadkaasi ayaa nebigu sariyadii ugu horeysay ee duulaankii ahaa uusan la socono xamza ibnu cabdulmutalib uu la daray ilaa siifil baxri ay ka gaaraan isla bishii shawaal ee sanadkaasi ayaa sariye kale uu diray Ubayd ibn Harith buu la diray ibn Abdul Muttalib ilaa badr Rabiq ay ka gaaraan isla waxa weeye bishii shawaal ee sanadkaas ayuu nabigu la aqal galay marka ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha isla bishaasi sanadkaasi dilqicda shawaal bay dilqicda marka laga soo gudbo sanadkaasi ayuu nabigu calayhi salaatu wa sariyo diray oo ciidan oo Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ilaa kharaas ay ka gaaraan isla bisha dilqicda nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu waxa uu walaaliyay walaalayntii dhaxmartay muhaajiriin iyo ansaar sanadkii koowaad intaasoo waqca markaynu soo arurnay sanadka labaad ee hijriyada bishii safar ee sanadkii labaad ayuu duulaankii ugu horeeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee meesha abwaa la yiraahdo uu ku qaa ilaa wadaan uu ka gaaray waana awwal ghazwatin ghazaha bi nafsi rasuulullah sallallahu alayhi wasallam duulaankii ugu horeeyay oo qaaday bishii safar ee sanadkii labaad ee hijriyada ayuu qaaday waad aragtaa inta sariya ciidan la diray oo duulaanku aysan ka marnayn muslimiintaba isagoo madiina yimid oo soo hijrooday intaasoo aad arkaysid rasuul sallallahu alayhi wasallam diinta iyo ilaalinteeda iyo Allah wax Allah wixii ku xadgudbayo dhan ciidamo la diray iyo juyuush la diray ilaa sanadkii labaad isagu uu ka qayb galay oo qaswadii macnaha qaswadaasi ree meesha abwaa la yiraahdo ilaa wadaan uu ka gaar uu ka qayb galay rasuul sallallahu alayhi wasallam isla bishii rabiicil awwal isla sanadkaasi ayuu duulaan ku qaaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaa bawaad uu gaaray isla rabiicul awwal aydan sidaas oo kale bishaasa ayuu duulaan kala qaaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam ghaswatu badr al-ula tal yiraahdo ilaa waadi safraan uu ka gaaro ilaa bishii jumaad al-ula ee ku xigtay isla sanadkaas duulaan kala qaaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam ghaswatu al-ushayra lagu magacaabo ilaa bani mudlij iyo xulafaadooda dhan uu ku qaaday isla bishii rajab ee sanadkaas oo sariyo diray rasuulka sallallahu alayhi wasallam ciidan ah macnaha juhayn uu diray Sa'd ibn Abi Waqqas ilaa xayyi fi kanana ay ka gaaraan isla bishii rajab ee sanadkaas rasuulku wuxuu diray sariye kale iyo ciidan kale Abdullah ibn Jahsh uu la gaaray ilaa ay waxa weeye ka gaaraan naqla ay ka gaaraan isla bishii rajab ama shacbaan laba ra'yi baa ku jira isla sanadkaas sanadkii labaada ayaan waxa soo degay amrkii Allah subhanahu wa ta'ala oo qiblada ku wareejinayo baytul maqdis kacbada loo wareejinayo sanadka labaad bishii rajab ama shacbaan oo aayaadka quraanku ay ku soo arooreen fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum halka loo yiri masjid qiblatayn oo arkaysa marka tagta marka madiino waana nasakhi ugu horeeyay waxa way dhaca islaamka dhaxdiisa isla bisha shabcaan ee sanadkaasi rajab shacbaan bay ahayd macnaha isla shacbaan sanadka labaad ayaa soonka la farad yeelay maalin jimcaha 17 ramadaan ee sanadkaasi bishaasi ramadaan ah ayaa waqacda qaswat al-badr al-kubra ay dhacday marka 17 ramadaan sharaftaas ay leedahay duulaan bisha ramadaan dhaxdeeda rasuulka sallallahu alayhi wasallam marnay hadda aragtaa hadda marka qaswadii weyneed ee badr maalin jimcaha 17 ramadaan bay dhacday isla sanadkaasi ayaa zakatul fidrki la fard yeelay oo waliba zakatu daatu nusb waxa la yiraahdo la fard yeelay markay ka soo laabteen badr maalinkaasba ayaa gabadhii nabiga la oofsaday ruqiya bint rasuulillah sallallahu alayhi wasallam رمضان دحديده ee sanadka laftigiisa ayaa wuxuu dilay Umayr ibn Adi radiyallahu anhu Asma bint Marwan gabadha yahuudiyada ahayd
dhibidii nabiga ay dhibaysa calayhi salaatu wasalaam isla sanadkaasi ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam musallo u baxay oo salaad ciid oo dadkii ku tujiyay awal waxa weeye salaad ciid oo musallo banaanka lagu tukadana sanadkaasi dhacday bishii shawaal isla sanadka labaad ayaa Salim ibn Umayr radiyallahu anhu wuxuu dilay abacadkii yahuudi ninkii la dhihi jiray tahriibkii iyo boorintii uu ku boorinayay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dadku uu ku kicinaya loo dilay isla bishii shawaal sanadkaasi ayaa rasuulku duulaan wuxuu ku qaaday reer bani Sulaym ilaa macnaha uu ka gaaray kadri meesha la yiraahdo waad aragtaa marna rasuulka sallallahu alayhi wasallam seeftiisa ma uusan dhigin isla sanadkaasi ayaa qaswadii Badr markii waxa weeye bil ay ka soo wareegtay ayaa gabadhii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee laga reebtay Zaynab bint rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ay soo hijrootay isla sanadkaas labaad ayaa rasuulku wuxuu u guuriyay Ali ibn Abi Talib Fatima bint rasuulillah sallallahu alayhi wasallam isla sanadka laftigiisa labaad ayaa waxa islaamay Umayr ibn Wahb al-Juhami ninka la yiraahdo saxaabiga jaliilka markuu calaamaadkii nabinimada iyo qisadiisa waa macruuf waad garanaysaan bishii shawaal ee sanadkaas labaad ayaa nabigu waxa ay buriyeen yuhuudi waliba reeb bayna qanaac weeye ahdigii ay rasuulka la galeen iyo ballantii markii horeysa aynu sanadka kuwaad soo marnay markaasuu nabigu insaar buu ku sameeyay waana laga raro waa laga ceyriyay magaalada Madiina isla sanadka labaad bishii Dhulhijja ayaa waxa dhacday qaswatu sawiq iyo duulaanki sawiq aad lagu magacaabo waad garanaysaan faahfaahintiisa isla bishii Dhulhijja waxa dhacay waxa la oofsaday Uthman ibn Mad'um saxaabiga jaliilka ah oo baqiic lagu duugay qubuura hadda aynu tilmaamayno markaad kacbada wajigeeda taagan tahay waxaan leeyahay masjidka Madiina taagan tahay dhanka midig ka qabanayo waana qofkii ugu horeeyay ee muhaajiriinta Madiina ku dhinto ayuu ahaa Uthman ibn Mad'um isla sanadka laftigiisa ayuu rasuulku wuxuu u qoray maqaal mucallaqa sayftiisa waad garanaysaan isla ciid al-adha buu sanadka tukaday labaad markuu gowracayo way labada orgi waaweyn oo midna ummadda uu ka gowracay midna aala Muhammad uu ka gowracay sanadka koowaad sanadka labaad waqacadaas dhacay sanadka saddexaad ee hijriyadiisii bishii Muharram laftigeeda ee sanadkaas qaswatu Najd baa dhacay meesha lagu yacanado amri meesha la yiraahdo garanaysa duulaan baa ugu horeey bi isla Rabiicil awwal ee sanadkaasi Ka'b ibn Ashraf baa la dilay ninkii yahuudiga ahaa ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu amray in la dilo isla Rabiicil awwal ee bishaasi laftigeeda ee sanadkaas ayaa wuxuu u gund aqdiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam Uthman ibn Affan buu u guuriyay gabadhiisa Kulthum bint rasuulillah sallallahu alayhi wasallam bacda wafaati markay Ruqayya ka dhimatay waynu soo marnay laakiin Badr markii laga soo laabtay Ruqayya dhimatay isla sanadkii saddexaad buu rasuulku u guuriyay Uthman ibn Affan Kulthum wuxuuna la aqal galay bishii Jumaadil aakhir kood garanaysa isla bishii Rabiicil aakhir ee sanadkaasi ghazwatul farq waxa weeye bahraanka awaatay dhaceen isla Jumaadil aakhirati bisha sanadkaas sanadkii saddexaad sariyadii Zayd ibn Haris baa dhacday ilaa qiradada oo ka gaareen soo qaniimeysteen ciirti iyo Quraysh iyo wixii dhan ay ka soo qabsadeen isla bishii Shacbaan ee sanadkaasi ayuu rasuulku wuxuu guursaday Xafsa bint Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sanadkii saddexaad bishii Shacbaan isla sanadkaas saddexaad bishii Ramadaan ayuu rasuulku wuxuu guursaday Zaynab bint Khuzaymah masaakiin lagu magacaabo radiyallahu anha isla bishii Ramadaan ee sanadkaasi ayaa rasuul waxa u dhashay Hasan bin Ali radiyallahu anhu uu dhashay oo wiilku uu ahaa isla sanadkaas saddexaad bishii Shawaal ayaa waxa dhacday qaswati Uhud bay dhacday marka sanadkii saddexaad bishii macnaha qaswadi Uhud maalinka labaad ee qaswadi Uhud muslimiintu hadana isla markiiba duulaan bay Hamra al-Asad meesha la yiraahdo duulaan ku qaadeen waad garanaysaa iyagoo aansan isla sanadkaasi saddexaad ayuu rasuulku wuxuu guursaday Zaynab bint Jahsha Allah subhanahu wa ta'ala amarkiisi ku guursaday oo loogu meheriyay sida fawqa sab'a samaawaat sabiixadii subaxii arooska Zaynab ayaa aayaadka xijaabku ay soo degeen marka aayaadka xijaabka ee arda haweenka la farayo isla subaxii waxa weeye sabiixadii arooskii Zaynab bint Jahsha radiyallahu anha ayaa aayaadka xijaabka soo degeen isla sanadka ayaa khamriga la xarimay insha Allah sanadka afraadna waynu ka sii qaadi doonaa waqtigaygu uu dhamaaday wajazakumullahu khayr وبارك الله فيكم marka waa idin dul maraya maadaama casharku iska yar waqtigan idin kugu buuxiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh